anigu laakiin waxaan leenahay dadkayga deegaanka degan ee faqashini dareen qaata dadka idlamada waxay yeesha ka caqliga la qaba wuxuu oranayaa wareer meesha meedaan ka tirsanayn meedaan deegaanka deganayn meedaan waxaan maamulkan la samaystay aan ka tirsanay jawaabtaada waxay ku oranaysaa waan ka tirsanay laakiin waa dad bahaloobay jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan farayaa waan leeyahay dadkaas deegaankaasi waa dad Soomaaliland waa dad shacab oo Soomaaliland waxa ay dadkan dhibaatada ay ku sameynayaan ay isku haystaanba waa aqoonsiga Soomaaliland ee la aqoonsaday ee caalamiga ah xaaladda cadacday waa lugna nabad ku joog lugna colaad ku joog iskii la xalay la qaarna waxa bay lahaayeenba fuqshin kala samaystay ilaahay rag baa lahaa oo haween baa lahaa oo daawanisay taas waxay ku cadeynaysaa in dadku aanay u bislaan wali waxa la yiraahdo nabadaba kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogta halkan waa Damal Media waxa halkan igula sugan oo aan waraysi kooban la yeelan doonaa chief caaqilka guud ee beesha Fiqijini Umar Jibriil Aadan Bakayla ku magac dheer chief caaqil waxa ka dhacay dagaal deegaanka ari cadeeye kaasoo dad shacab lagu laayay bal ka waran xaaladii u dambeeyay ee deegaanka ari cadeeye hadda kaaga warramo dagaalka meesha ka dhacay shalay wuxuu ahaa dagaal xun oo dadkii oo deegaanka degan oo magaaladii jooga oo ari cadeeye ay nabad tahay oo aan wax rabshada jirin ayay niman waxay la soo galeen technicadina waxay sababtay in uu halka dagaal ka dhaco xasuuqna ay ka geystaan xasuuqaas ay geysteen waxa ay ku geysteen technicada baawurta waaweyn dagaalkaas marka hore maxaa sababtay ku yimid maxay ahayd sababta hore dagaalkaas waxa ku yimi laba nin oo hore oo fiqshiniya ay nimankan leeyla jaacsiyaad ku dileen iyadoo oo labada nin hawsheeda dhowdahay oo heshiis uu jiro ayaa hawshan daba dhacday waxaase ay uu raad ku leeyahay ragga hore laayay fuqshiniga laga laayay labada nin korneelkii gubadle iyo ninkii maxamed cali kale raadku uu ka yimi uu sababtu kaasay halkaas ka timi aanadaas markaa keentay dagaalkan dhacay shalay toole aanadaas ayaa keentay dagaalka dhacay oo inamadii mid kamid ah labada nin la diray mid kamid ah ayaa dhacday dhexdeeda ku dilay laba nin ma jeerteen iyo nin jaacsiyaad ka bacdi iyagu ma fakiroon ismay oran wixii dhacay dawladda sheeganaysaane bal labadii ninkii wax dilay hal soo qabtay maadaama kuwii hore ee wax dilayba aan lahayn bal aan u fikirno odayaashii aan ku noqono may gaadhin waxay gaadhay heer inay technical waaweyn soo kaxaystaan magaaladiina ku weeraraan magaaladiina la dilo dad dhan 25 marka dadka 25 kala dilay ma dadkii dad hubaysan bay ahaayeen mise dad shicib oo aan hubaysnayn bay ahaayeen way isku jireen labada isku jireen dhalinyaro qaar hubaysan ma jireen laakiin waxa aan hubaysnayn dadka birmigeedada dadka ay dileen waa ugu yaraan markaan qiyaaso waxa ku jira 10 nin oo waaweyn oo markii da'dooda la qiyaaso 75 82 78 ugu yaraan 10 oo heerkaas ahayd dhalinyaradu iska 8 bay ahayd waxa kale oo ay dileen dadka birmigeedada loo yaqaan haweenka iyo ciyaalka marka imika xaaladiisay tahay xaaladii imika magaalada ari cadeeye waa sidee maanta wallahi xaaladda ari cadeeye waa lugna nabad ku joog lugna colaad ku joog saakana waan arkaysaa dawladda kaliba la soo galiyay dadkii oo qoladii ku sheeganaysa dawladda kuma jirto meesha qoladii waxa sheeganaysay ayaa magaalada tin waxay tiri waa hadal baa la sameeyaa hubka dhiga odayaasha loo yeero meedkiina naasano meedkiina lama aasiyaan arkayna beesho tiri ilaa la keeno wixii waxan dhibka geystay xaaladii ugu dambeysay halkaas taaganta wali ma aragteen cid waan ka dhex wada oo dhinaca doontaba ka socota amba labada dhinac cid ka madax banaan oo iyadu waan wada ma la soo xiriireen maadaama uu chief caaqilkii tahay wallahi anigu de waan ka warhayaa meesha xalayna waan la hadlay saakana waan la hadlay wax beeshaas oo magaca guud xataa dhibaatada geystay oo media social media-ku wata qadiga halka degan TV ma haysta media de mobile ka wada haysta wad arki lahayd wax soo geliya oo beesha guuda oo ka hadlaya dhibaatada halkaas ama geeraad ha noqdo ama caaqil ha noqdo ama professor ha noqdo ama oday dhaqameed kale ha noqdo ama oday nabadeed ama dhalinyaro ka hadlaysa ma jirto wax ay tumayuun bal arkay la xalay ila qaarna waxa bay lahaayeenba fuqshin kala samaystay ilaahay rag baa lahaa oo haween baa lahaa oo daawanisay taas waxay ku cadeynaysaa in dadku aanay u bislaan wali waxa la yiraahdo nabadaba waxa marka erayada adeegsatro wadayaal soo dadku been diinta baran waayo markii uu nabi Muuse Fircoon ay isdagaalayeen nabi Muuse la soo dejiyay u tag sixirka ay dhigeen
ayuu fircoon ku jawaabay nabi muuse dunida anaa iskale dunida kala samayso ayuu ku yidhi nabi muuse ku yidhi tiiba maanta taagan ay ku hadlayeen waxay lahaayeenba shaqashinigu ilaahu faqashina kala samayso aqoontooda lima kala ka taagantiba maadaama dadkii dhintay aan la aasin ilaa hadda deegaankiina aanu lahayn meel talaagado lagu hay meydadka soo dhibaato soo gaari maysa meydadkaas oo in la xurmeeyo ma haboono oo la aaso meydadkaasi maadaama aan ilaa hadda aan la aasin horta meydadkii dee qasab waxay noqonaysaa horta meesha deegaanku maba lahaba talaagado qasab waxay noqonaysaa dee waanu garanaynaa dadka wixii naga dilay dadka meydkaa waxaan leeyahay hala aaso hadda ayaan halkan ka farayaaba dadka meydka ilaa tiradooda wanaagsanaa magacyadooda wanaagsanaa waan garanaa intay naga dhimatay hala aaso meesha talaagad male waa meesha tuulada degmada waxba kale ma yaalaan oo electronic waad ognahay talaagadeeda waan ognahay marka waxaan ka codsanayaa dadka horta wixii dambe aynu samaysan lahayn iyo waxaan ku tashan lahayn labaduba inaga inoo talaa laakiin dadka waxaan leeyahay aasa meydka markaad laga yimaado inaad fariintaad dirto muxuu ahay in la aaso meydadka fariin kaloo diraysaa ma jirtaa oo in colaada la joojiyo oo kale ah oo aad ugu baaqaysa dhinacyada colaadda horta beeshan anugu aan ka dhalino colaadba may ahayn deegaankana colaad uma ahayn dadka meeshan deganna colaad uma ahayn laakiin dadkan deegaanka aan wada degnaa sababsaday inaan colaadda u qaadno iyaga taas waxay ku cadaynaysaa dadka magaalada shalay deganaa nimanka aan iyagoo waxba sheegin tignika kusoo galay tignikadaas oo ah tii la samaystay ee la lahaa ee annagu aan ku jirnay ee la lahaa maamul baa wada leediin dadka caqliga la qaba wuxuu oranayaa wareera meesha maydaan ka tirsanayn maydaan deegaanka deganayn maydaan waxaan maamulkan la samaystay inaan ka tirsanayn jawaabtaada waxay ku oranaysaa dee waan ka tirsanayn laakiin waa dad bahaloobay oyey adee dad aan garanaynba dadkan dhulkan ka tirsan madaxdooduna weli may hadlin wasiiradooda kusheegu may hadlin madaxweynahooda xamar jooga ee layiri xamar uu joogaa muu hadlin marka wax kasta oo meesha ka taaga waa dhibaato iyagu reerkaasi wadaan anagu laakiin waxaan leenahay dadkayga deegaanka degan ee faqashini dareen qaata dadka idlamada waxay yeesha hadday tignika noqoto tignikadii yeesha hadday baabuurta noqoto baabuurtiina yeesha wixiina gacanta idinku haysta cid kale baa u dhiibina wixiina nala soo noqda cid kaloo aan ahayn maxaa yeelay dhinacyada oo aad baaq u diraysaa oo aad leedahay sidee dadkaa kala gaadho oo aad u diraysaa ma jirtaa kow waxaan u dirayaa horta dowladda jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan farayaa waan leeyahay dadkaas deegaankaasi waa dad somalilan waa dad shacab oo somalilan waxa ay dadkan dhibaatada ay ku samaynayaan ay isku haystaanba waa aqoonsiga somalilan ee la aqoonsaday ee caalamiga iyo in dadkan ay niyadooda ay tahay dad somalilan oo aanay diidanayn somalilanimadu waa waxa dhibaatada keentay dadkan wadada shacabka somaliland waxa ka codsan in la caawiyo dadka si loogu gargaari lahaa dadkaas gargaar fiican loo sameeyo wada kastoo loo marinay anaga hayna waa maasanta